maxkamadda gobolka Awdal go'aan maxkamadeed kow waxay ansixisay maanta oo ay taariikhdu tahay 20kii bishii 6aad 2021 go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Lughaya waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka degmada Lughaya ay ku guuleysteen mudanayaasha kala ah xisbiga ucud Maxamed Barre Cabdilaahi Cabdikariim Rooble Xasan Dhimbiil xisbiga kulmiye Cabdilaahi Cali Aw Nuur Dixood Sahal Cali Beyle Faarax Xuseen Axmed Mataan Xoosh Axmed Xuseen Badmaax Riiraash Maxamed Barre Ibraahim Xuseen xisbiga wadani Mooge Cabdilaahi Xasan Amare Zakariya Sheekh Ciise Sheekh Xasan waxay go'aankan loo cuskaday qodobada 111 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 22aad 23aad 24aad 25aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer number 23/2019 iyo qodobka 153 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 19/2020 iyo qodobka 77 afar go'aankan waxa lagu dhawaaqay maanta ay taariikhdu tahay 20kii bishii 6aad 2021 dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo